shirku markiisa hore ayuu wuxuu ahaa khalad shirka waxa looga hadlayay maamul goboleedyadu waxay yiraahdeen waxaan uga hadlaynaa arrimaha doorashadana waxa loo xil saaray ra'iisul wasaaraha marka waxay ahayd arrin sharciga baalmarsan oo keeni lahayd qaybsanaan cusub intay waxalin lahaayeen marka waxaana dabcan baajiyay pressure kaga yimaaday shacabka oo isagu maamulo oo madaxweyne qorqor oo ilaa hadda wuxuu qabtay uusan jirin anagoo og sidoo ku imaaday ayaa waxa laga rabay inta uu madaxweyne dani oo dadkiisa wuxuu qabtay dekada uu sameeyay horumar uu sameeyay intuu daba socon lahaa ama madaxweyne farmaajo cadaadis ku saari lahaa inuu ciidamadan ka soo qaadaya inuu yiraahdo oo cabsado in uu shacabkiisa haday dawladda federaalku ka helisay uu shacabkiisa isu dhiibo ayaa la rabay waayo ilaa hadda waxaan ognahay wax ciidan ma lahan farmaajo ayaa ugu hanjaba haddaad raaci waydid ciidanka ka soo qaadanaya marka arrintaas waa arrin khatar ah madaxweyne qorqor waa nin walaalka naga waa wuxuu meesha uu xukuumana waa meesha ay mar walba madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu Soomaaliya weligeed ka yimaadeen wuxuu haystaa shacab wanaagsan shacabkiisa iska dhaadhiciyo haddii kale waxaan ka cabsanayaa arrin baa socota shacabkiisa oo jecel buu isku daraya way waxa socda mooshin looga hor imaanayo oo looga qaadayo xilka marka awoodda shacabka iskale ee madaxweynaha waxaan dhihi lahaa yuusan dhaxdhaxaad ka noqdo arrinta siyaasadda dad arrimo kala wata iyo nin musharax kale oo arrimo kala wata yuusan u danaynayn ma matalo ma hoos yimaada Puntland wuxuu xukumaa galmudug waxaan dhihi lahaa shacabkiisa u daneeyo oo shacabkuna baarlamaankan waxaan dhihi lahaa joojiyaan mooshinka ay wadaan iyo qalalaasaha isaguna meesha ha u sameeyo boolis oo u sameeyo matalaadii adeegii ay dawladdu ku lahaayeen farmaajo ha weydiiyo intuu cadaadis saari lahaa farmaajo madaxweynaha qorqor isagu ha saaro cadaadis hadduu soo xuqabeeyeen in shacabkiisa lacag ha weydiiso oo sida ay garacad ugu sameeyay isaguna ha ku daydo walaalaha Puntland aad u dadaalay isaguna ha ku dayo ha garab galo hobyo anu taasan qaba arrintaas waa arrin khalad ah taban dani baa wada waa arrin aad khalad u ah taban in badan baan ka digay musharaxiinta anu musharax Jubbaland baan ahaa marka iga helinayaan baan dhaay sidan leedu ku wado oo meel cidoodu ka tagi doona wuu ku daneystay wuu uga baxay marka arrintan waxay ka soo horjeedaa sharciga waxay ka soo horjeedaa wixii lagu heshiiyay marka sinaba sharci maahan mar kasta oo doorasho laga hadlayo madaxweyne shaqo kuma leh maamul goboleed shaqo kuma leh waxa hagaya looga dambeynaya beesha caalamka shaqo ku leh waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha horta madaxweynaha iyo baarlamaanka waqtigooda ugu dhamaaday waxna ma soo saari karaan waxna cid kama qaadi karaan marka laakiin ra'iisul wasaaraha ayaa awoodda iskale haddana waxaba baarlamaanka hortiisu madaxweynuhu wuxuu ugu wareejiyay arrimaha doorashada marka in ayagu inay ka hadlaan arrimaha doorasho loo xil saaray uu mas'uul ka yahay ninkii dalka ugu sareeyay ra'iisul wasaarihi hoos imaanayeen wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaadaan maamul goboleedyadu waa arrin khalad ah abuuri lahaydna qaybsanaan waxay ka hadlayaan ma jirto waxay doonayeen inay ra'iisul wasaaraha ka saaraan oo ayagu soo doortaan ra'iisul wasaaruhu wuxuu doonayay wax la wada og yahay oo wada ogol oo la isku waafaqsan yahay taas ay ka cararayaan marka waxay doonayeen inay soo magacaawdaan maadaama uu dani uu madaxweyne yahay wuxuu musharax yahay wuxuu rabay Jubbaland iyo Puntland inuu xildhibaanadooda isagu soo xusho si wareegga labaad u imaado marka doorkii meesha waxa banaanka ku soo dhacay qorqor iyo rag kale iyo guud laba banaanka ku soo dhacay xataa lafta gareen waxay ka hadlayaan waa doorasho yani waxay ka hadlayaan waxa anigu aan soo baxo oo haloo daneeyo dani ha lagu shiro garow waa khalad maamul goboleedyadu madaxweynayaasha waxaan dhihi lahaa musharaxiin ma ahan yaysan iskala mid dhigin nin musharax oo isagu dareensanaya oo khilaafaya ra'iisul wasaarihii loogu talagalay inuu doorashada hago madaxweynaha hadda waa la wada arkaa dani waa nin fiican waa nin aqoon-yahan waa nin siyaasadda si fiican u yaqaana si kala shacabka Soomaaliyeed ha ku kasbado siyaasadda xaq buu leeyahay waxa la gudboon inuu ra'iisul wasaaraha uga dambeeyo sharciga hadduu shalay ka qeylinayay farmaajo ayaa sharcigii jabiyay maanta isagu yuusan jabinin doorashada waxa loogu talagalay looga dambeynaya ra'iisul wasaaraha weeyaan marka isagu hadday siyaasad ku jirto iyo haddii uu khalad iyo sharci baa laga leexdo hadduu ka cabanayay isagu maanta yuusan u noqonin wada furanta in sharciga la khilaafo ra'iisul wasaaraha laga hor